sida aad ogtihiin waxa aan golaha shacabka horgeeyay barnaamijka xukuumadda ay ku shaqayn doonto ee ku salaysan qorshaha horumarka qaranka ee sagaalaad iyo natiijadii ka soo baxday shirarkii madaxda qaranka ay ku yeesheen Samareeb iyo Muqdisho. barnaamijka xukuumadda aad qaybta ka tihiin wuxuu ahmiyadda kooban siinayaa qabsoomidda doorashada dalka maadaama waddanku uu galay xilli doorasho oo loo baahan yahay in si wadajir ah aan u xaqiijino qabsoomidda doorasho daahfuran isla markaana aan habacsanaan ku keenin howlaha aan dawladda u qabanayno. aniga oo halkaa ka ambaqaadaya ayaa waxaan wasaaradaha weydiinayaa in ay qorshahooda guud ka soo dhex saaraan qorshe howleedka 100 maalmood ee soo socda taasoo lagula xisaabtami doono wasaarad kasta. waxaan rabaa in aan si gaar ah u ammaano dhammaan howlwadeennada wasaaradaha oo runtii shaqo wanaagsan soo qabtay kuna soo shaqeeyay marxalado adag isla markaana meel fiican soo gaarsiiyay howlihii loo igmaday iyo waliba sida dhaqsaha ah ee ay u soo diyaariyeen howlihii aan weydiinay kuna soo diyaariyeen muddo gaaban.